قاعدة العديد في قطر. haddii aad ku nooshahay dal Carabeed ama Aasiyada Dhexe ama qaaradda Afrika oo aad aragto diyaarad militari oo Mareykanku leeyahay waxaad ogaataa in ay ka soo kacday saldhigga Al Udeyd ee ku yaala waddanka Qatar. sidoo kale haddii aad joogto dal bartilmaameed u ah Mareykanka oo aad maqasho duqeymaha Mareykanka waxaad ogaataa in weerarka laga soo qaaday saldhigga Al Udeyd ee ku yaala waddanka Qatar. sida ay sheegtay wakaaladda Sputnik News duqeymaha Mareykanka ee dunida 40% waxaa laga soo qaadaa saldhigga Al Udeyd. Al Udeyd waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay saldhigyada ciidamada cirka Mareykanka kuwooda ugu waaweyn waxaana ku taala xarunta taliska ciidamada Mareykanka. sidoo kale waxaa ku taala xarunta taliska ciidamada cirka Mareykanka. sidoo kale waxaa degan xaynta 83aad ee ciidamada cirka UK. sidoo kale saldhiggaasi waxaa degan garabka 397aad ee ciidamada Mareyniska Mareykanka. sidoo kale Mareykanku waxa uu ku marti qaaday cutubyo ka tirsan ciidamada Australia. saldhigga Al Udeyd ayaa la dhisay sanadii 1996 kadib afgambigii Amiir Xamed Al Thani waxaana Qatar uga baxay lacag dhan $1 bilyan waxaa lagu bilaabay 3,000 oo askari iyo 30 dayuuradood iyo 4 diyaaradaha wax daabula ah. intaas kadib Amiir Xamed ayaa damcay in la ballaariyo saldhigga Al Udeyd si uu u martigeliyo 10,000 oo askari iyo sidoo kale si uu u noqdo saldhigga militari ee ugu weyn oo Mareykanku ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. 2001 waxaa rumowday riyadii Amiir Xamed markaas oo Mareykanku shaaciyay dagaalkiisa ka dhanka Afghanistan. dowlado badan ayaa diiday in duulaankaasi laga qaado dalalkooda balse Qatar ayaa gacmo furan ku soo dhaweysay waxaana laga qaaday dalka Qatar. tirada diyaaradaha Mareykanka ee taalay saldhiggaasi waxay ahayd 120 diyaaradood. sidoo kale tirada askarta Mareykanka ayaa kor loo dhaafiyay 10,000 oo askari. 2003 waxaa laba jibaarmay muhiimadda saldhigga Al Udeyd waxaana laga maamulay duulaankii Ciraaq. diyaaradihii duqeynayay Ciraaq waxa ay ka soo kici jireen Al Udeyd. markii saldhiggaasi lagu burburiyay Afghanistan iyo Ciraaq waxa uu noqday meesha laga baabi'iyo dowladaha cadawga ku noqda siyaasadaha Mareykanka. 2009 waxa uu noqday xarunta taliska ciidamada Mareykanka ee Aasiyada Dhexe ilaa Geeska Afrika. waxaa lagu qalabeeyay sawaariikh casri ah iyo hub kale oo casri ah. Qatarna waa ay sii ballaarisay ilaa uu noqday saldhigga ugu weyn ee ku yaal Bariga Dhexe. 2019 madaxweyne Donald Trump oo la kulansanaa amiirka Qatar ayaa alla uga mahad celiyay hantida waddanka Qatar. $8 billion invested. Thank goodness it was mostly your money, not ours. Qatar ayaa saldhiggaasi ku qarash gareysay $8 bilyan. waxaa soo ifbaxaya doodo kale maadaama uu Mareykanku saldhiggaasi u adeegsanayo bartilmaameedyo cusub oo ku yaala Bariga Dhexe sida duqeymaha Daesh. si gaar ah waxaa la sheegaa in diyaaradihii fuliyay dilkii Generaal Qaasim Suleymani ay ka soo kaceen saldhigga Al Udeyd ee waddanka Qatar.